allaha u naxariistay muwaadin Soomaaliyeed ayaa lagu dilay tuulo hoos tagta magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape ee dalkani Koonfur Afrika waxaana sidoo kale dhaawac loo geystay muwaadin kale xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo falkani dilka iyo dhaawaca isugu jira oo aan ku cusbayn indhaha Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa geystay burcad u dhalatay dalkani Koonfur Afrika muwaadinkani geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Cumar Maxamed waxaana maanta lagu aasay qubuuraha muslimiinta ee magaalada Port Elizabeth ciidamada booliiska magaalada Port Elizabeth ayaa goobta gaaray sida caadada ahna ma jirto cid loo soo qabqabtay ama lagu tuhmayo falkani dilka iyo dhaawaca isugu jira marka laga reebo baaritaanada joogtada ah oo ay sameynayaan ciidamada booliiska kaasi oo aan horey looga baran in la helo cadaymo ku aadan ciddii ka dambeysay dilka loo geysanayo ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Port Elizabeth oo tacsi u diraya eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumkaasi magacayga saddexan waxa way Cartan Cabdi Xasan Ahmed waxaan aad ugu xumahay dhimashada abtigeyga Cabdiqaadir oo ku geeriyooday maanta tuulada New Brighton magaalada Port Elizabeth waxaan tacsi tiiraale u dirayaa awooyaashayda inuu Ilaahay ka siiyo waxyaalo kale oo ka fiican Ilaahay ugu bedelo wiilkaasna Ilaahay jannada ugu bishaareeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Sharmarka Sheekh Maxamed Shaabakar waxaan halkan uga taxsiinaa walaalkay marxuumka Cabdiqaadir Cumar Maxamed alloo naxariisto gacan gardan ku geeriyooday heladiisi iyo inta uu ka dhintay anagana oo naga dhintay ee Soomaaliya Allah ka siiyo weerada waa xaq wiilkan ay ku dhaawacmeen ayagana Allah noo caafiyo dhibaatadan wadanka way ka wada jirtaa dilka iyo toogashada iyo dhaca iyo problemka maalin kasta ka jirta wax continuous maalin kasta socdo way annagana Ilaahay ku badbaadaan laga naga dhigo meesha meel ka khayr badan Ilaahay nagu bedelo si kastaba ha ahaatee Cabdiqaadir Cumar Maxamed ayaa noqonaya marxuumkii labaad oo lagu dilo tuuladaasi hoos tagta magaalada Port Elizabeth taniyo bilowgii sanadani 2014 Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Home Cable Koonfur Afrika